Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Shafi Production. Waxaan idiin soo gudbin doonaa 10 arrimood oo qosol badan oo ku saabsan dumarka. Ma ahan aflagaado, mana ahan dacaayad, mana ahan kaftan ee wax xaqiiqo jirta oo dumarka maanta jira ay ku dhaqmaan badankood. Haatan ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Arrinta koowaad oo cajiibka ah ayaa ah isku celcelis dumarka waxay cunaan oo ay liqaan rooseetada qiyaas ahaan 2 ilaa 3 kiilo intay noloshooda ay marsadaan rooseeto. Qodobka labaad ee cajiibka ah ee dumarka ku saabsan ayaa ah dumarka waqtigan jira waxay ugu yaraan 24 saac soo marta ay iljebiyaan 3 ilaa 4 mar. Iljebinta u dhiganta baaqan ayagana uga badan dhinaca ragga. Qodobka saddexaad ee cajiibka ah ee asna dumar ku saabsan ayaa ah dumarka waxay aad u aaminaan oo naftooda si sahal ah u siiyaan ruuxa habsiya oo laabta ku haya ugu yaraan 20 sakin ama 15 sakin. Qodobka afaraad ee asna dumar ku saabsan ayaa ah dumarka ayaa hadday suun dhexda ku xirtaan kor u qaada. Raggana waxay kaga duwan yihiin in dumarka suunka dhexda sare ku xirtaan raggana ay hoos ku xirtaan suunka. Qodobka shanaad ee ku saabsan dumarka ee asna cajiibka ah ayaa ah isku celcelis sanadkii 120 saacadood ayay dumarka isku eegaan muraayad, waana dhif gabar nabad ku nool oo aan muraayad isku eegin maalintii 2 jeer. Qodobka lixaad ee asna dumarka quseeya ayaa ah dumarka marka ay saygooda ka gutaan xaajada horey kama seexdaan oo weli waxay xiiseynayaan inay ku sii nagaadaan laabta saygooda halka ragga markay waajibkooda ka gutaan ay hore ka seexdaan. Qodobka toddobaad ee ku saabsan dumarka ayaa ah dumarka Soomaaliyeed ee xilligan jira haddii la baaro boorsada ay wataan waxaa laga dhex helayaa waxyaabaha la isku qurxiyo ama dhar. Qodobka sideedaad ee asnagana cajiibka ah ee ku saabsan dumarka ayaa ah gabadha marka ay jacayl sameynayso waxay aad ugu walwashaa inaysan qurux badnayn halka ninka ragga ah uu ka fikiro inuusan caaqil ahayn. Qodobka sagaalaad ee dumarka quseeya ayaa ah dumarka ma jecla in dareenkooda ay u soo bandhigaan ninka waxay ka jecel yihiin inuu asaga ka akhristo indhaheeda wax walba ay u baahatana ay ka hesho iyadoon dhawaaq samaynin. Qodobka tobanaad ee u dambeeya ayaa ah dumarka qof soo gadaal socda oo u yeera kaliya qoorta ayay gadaal u leexiyaan halka ragga jirka oo dhan ay gadaal u soo wada jeestaan. Taasina waxay la macno tahay qoorta dumarka inay ka jilicsan tahay tan ragga. Waa hagaag waxaan filayaa inaan ka heshay qodobadan dhammaan aan soo tirinay balse adiga qodobkee ayaa ku soo jiitay oo aad ka heshay. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan subscribe saar si ay muuqaalada xiga ay kuu soo gaaraan. Tan iyo muuqaalkeena dambe intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadiino.